madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horeysay aqbalay in ciidamada wadanka Turkigu ay qayb ka noqdaan howlgalka nabadeynta ka soconaya magaalada Gaza halkaas oo Israel ay si weyn uga soo horjeedo. Mareykanka ayaa si weyn u raadinaya ciidamada Turkigu inay halkaasi howlgalka ay lagu daro maadaama dhinacyada Falastiiniyiinta ay hubeysan cidda kaliya ay dhaxdhaxaadka u arkayaan ay tahay saatee Israel ayaa la eegayaa sida arrintan ay uga jawaabaan. Dowladda Saudi Arabia ayaa ku dhawaaqday inay diyaar u tahay inay qayb ka noqoto heshiiska caadiyeynta xiriirka diblomaasiga ah ee Israel balse ay ku xireyso shuruud ballaaran. Dhinaca kale wasiir Israa'iili ah oo arrinta shuruudda ka jawaabay waxa uu yiri waxa la gaaray xilligan ka tanaasuli lahayn inaan wax xiriir la sameeyno dunida Islaamka maadaama ay doonayaan mustaqbalka jiraalka Israel inay qalqal galiyaan. arrintan oo ka hor imaanaysa damaca Mareykanka